وحولك كوبادة كولايغا عاصمة سوماليلاند ee Hargeysa ee dhawaan ku guuleystay horyaalka gobolada dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku dalxiisaya mid ka mid ah xeebaha gobolka Saaxil kadib markii ay martiqaad ka heleen maamulka hoteelada Mansour Tourism Center iyo sidoo kale Mansour Group waxayna halkaasi ku soo dhaweeyay Mustafa Cabdi Cali oo soo ka socday hoteelada Mansour waxaana uu sheegay in ay mar walba ay dhiiri gelinayaan dhalinyarada kala duwan ee dalka waxaan aad ugu faraxsan haddaan nahay Mansour Tourism iyo Mansour Group inaanu maanta dhalinyartii koobka qaaday kubadda kolayga iyo kubadda been iyo orodka iyo cayn magaranaysa kubadda cagtaba dhamaantoodba ballanqaadkayga aanu fulino kooxdii horeysay martiqaadkii soo ajiibtay ee soo fulisanay noqotay kooxda gobolka Maroodijeex Yuusuf iyo tiimkiisa aad baan ugu mahadnaqaynaa hawshana waxa ka qayb qatoon qaabka dhiirigelintaanu anaga Mansour Group ahaan ay nooga go'onayd sidii aan contribution-kayga qarankayagana aan uga qayb qaadan lahayd halkan tiimkii Mansour Group oo dhanba isku wada dhan qaybtii Hargeysa Berbera iyo Burco dhamaantoodba waxaan aad ugu faraxsanahay inaanu maanta badweynta bartamaheena badaba inaga iska leh dhalinyarteeni koobka qaaday ay sharafnayno in maanta badoodii Soomaaliland ay ku dabaal degto waana meelaha aanu jeclaysanayna wax indhahooga wax ka qurux badan wixii hore ay soo sameeyeen in wax kale ka qurux badan iyo jawi kale ka qurux badan aanu sameeyno aad baan idigu mahadnaqaynaa haddaan Mansour Group nahay waan ku faraxsanahay inaad magaalada tan Berbera noogu timaadaan waan ku faraxsanahay inaan idigu dalxiis gelin doomaha Mansour Tourism waxaan se ballanqaadkay waliba kalena uu ku sii waajahayaan sugan ayaguna kooxii kubadda orodka ku guuleystay iyo kubadda cagta gobolka Daadmareer iyagaba labadaba martiqaadkii gogashu waa fudantahay maantana waxaanu si fiican ugu badweyntaa ugu wada dalxiis qaar ka mid ah ciyaartooyda iyo sidoo kale macaamilinka xulka kubadda kolayga ee caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa iyaguna ka hadlay dareenkooda ku aadan soo dhaweynta lagu sameeyay gobolka Saaxil iyo sidoo kale dalxiiskan ay ku marayaan xeebaha gobolka ee ay u sameeyeen maamulka hoteeladaasi runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay haddaan nahay dhammaan xulka kubadda kolayga ee gobolka Maroodijeex iyagoo ballan qaaday kooxdii kasta ee ku guuleysata inay Mansour Group ku macsuumi doonto dalxiiska dekada Berbera iyo dalxiiska khaaska ee Mansour Group taasoo ilaahay noo suurto galiyay annagu inaan noqono kooxdii ku guuleysatay Mansour aad iyo aad bay ugu mahadsan tahay waxaana qayb ka tahay dhiirigelinta ay dhalinyarada u sameeyso Mansour Group oo ay markasta kaga jirto hormuudka qarankana ka tahay qarankeena taabagelintiisa hadii ganacsiga tahay hadii tahay kaabayaasha dhaqaale sida dhiirigelinta dhalinyarada raxiim hadda waxaan ku suganahay Mansour Beach Mansour Berbera Beach baan ku suganahay halkaas oo maanta aan ku soo dhaweynay kooxdii nooga timid Hargeysa ee ku guuleysatay koobkii kubadda kolayga ee tartankii ciyaaraha gobolada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo maamulka Mansour Beach Berbera ugu talagalay inuu ku soo dhaweyn ballaaran uu sameeyo isagoo qadarinaya dhiirigelinta dhalinyarada iyo sidoo uga qayb qaadan lahaa in dhalinyarta la dhiirigeliyo laguna kobciyo in sportska ay sii wadaan ugana qayb qaataan bulshada Soomaaliland waxa sidoo kale barbar socotay dalxiiskan ciyaartooyda gobolka Maroodijeex ee kubadda kolayga lagu geeyay xeebaha gobolka Saaxil casuumad ay u fidiyeen maamulka hoteeladaasi Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud telefishinka qaranka Soomaaliland Berbera